salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacan oo wanaagsan waxaad naga daawanaysaan Waasima TV kusoo dhawaado qodobada wararka kooxaha argagixisada ee canfarta ayaa weerar ku soo qaaday cilbiyoodka shagle heshiisiinta beelaha Soomaaliyeed ee hawiyaha iyo ciisaha ayaa meel wanaagsan maraysa komishinka baadhista iyo qaabilaadda cabashooyinka deegaanka ayaa tababar u qabtay xubnaha guddiga cabashooyinka ee ka aasaasan xafiisyada deegaanka xuska maalinta xorriyadda Soomaaliyeed ayaa maanta ay bishu tahay 26 ku beegnayd ku soo dhawaada daawadayaal qodobada warkayagii oo faahfaahsan kooxaha argagixisada ee canfarta ayaa weerar ku soo qaatay cilbiyoodka shagle qodobkaasi waxay noo soo diyaariyay wariye Mahdi ee la socodwan iyadoo ay abaaraha iyo oonku ay sababeen isbedelada cimilada iyo roob la'aantu ay adkaysay nolosha miyiga ah ayaa galbeedka city maamulka canfartu kala dagaalamaya biyaha iyo calafka xoolaha barqanimadii saaka oo xad ahayd ayuu bay ahayd markii maamulka canfartu ay u diyaarsan yihiin gawaadhida xamuulka qaada oo alaaba xoolaha ku gurtaan iyo hubka culus oo lagu kala firdhiyo xoolaha laguna laayo shacabka wata ayay soo weerareen cilbiyoodka shagle oo wax ka yar 30 kilomitir dhanka galbeedka kaga beegan magaalada Candhuufa ciidamada qowleysatada ah ayaa qaatay xoolo lo ahaa oo gaaraya 300 oo neef dadka xoolo dhaqatada ayaanan hubin in si nabad ah xoolahooda iyo naftooduba uga cabi karaan cilbiyoodyada sii guraya ee gabaabsiga ku ah biyaha shacabka galbeedka city ayaa aroorku u yahay laba daran mid dooro oo ah in haraad dad iyo dunyaba ugu dhintaan iyo in xabadda maamulka canfartu disho xoolahoogana la xalaalaysto dagaalkan ayaa ah mid lagu bartilmaameysanayo xoolo dhaqatada laguna barakicinayo si ay ugu suurto gasho maamulka canfartu in ay gacanta ku dhigaan magaalooyinka Candhuufa dan la helay iyo madane ay xoolo dhaqatadu dayr u yihiin heshiisiinta beelaha Soomaaliyeed ee hawiyaha iyo ciisaha ayaa meel wanaagsan maraysa xurguftii dhawaan dhaxmartay labada beelood ee walaalaha ee Soomaaliyeed ee hawiyaha iyo ciisaha ayaa xalintoodu meel fiican maraysa waxa gobolka city ku sugan wafdi ballaaran oo hogaaminayo hoggaanka nabadgelyada mudane Mubashir Raage uu helinaya taliyaha guud ee ciidanka gaarka ee dowladda deegaanka Soomaalida Maxamed Axmed maamulka gobolka iyo odayaal dhaqameedka deegaanka ujeedada wafdigani ayaa ah in heshiisyada labada beelood ee mashaqadu ka dhaxdhacday la heshiisiyo wuxuuna wafdigu shirar ballaaran la galay odayaal dhaqameedka labada deegaan si loo dabaalo colaadda hoggaanka nabadgelyada dowladda deegaanka Soomaalida mudane Mubashir Raage oo halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in hirgeliyeen tallaabooyin muhiim oo ay ka mid yihiin in la dhaxdhigo labada beelood ciidan xooggan lana kala kaxeeyo wada hadalka odayaal dhaqameedka oo si ramsi ah u bilaabmay iyo waliba shirar qiimeyn ah ay bilaabeen lana qiimeyn doono madaxda labada degmood ee Afdam iyo Mulli caqabadaha halka maamulka jirana la sixi doono geestiisa gudoomiyaha cusub ee gobolka city mudane Maxamed Kaahin oo ayaa carabaabay in tallaabo sharciga waafaqsan laga qaadi doono dadkii ka dambeeyay colaadani isla markaana colaadan oo ah mid soo noqotay in xal waara lagu heli doono wada hadalka imika u socda odayaal dhaqameedka labada beelood komishinka baadhista iyo qaabilaadda cabashooyinka deegaanka ayaa tababar u qabtay xubnaha guddiga cabashooyinka ee ka aasaasan xafiisyada deegaanka komishinka baadhista iyo qaabilaadda cabashooyinka deegaanka ayaa tababar u qabtay xubnaha guddiga cabashooyinka ee ka aasaasan xafiisyada deegaanka tababarkan oo ay kasoo qayb galeen xubnaha guddiga cabashooyinka ee ka aasaasan xafiisyada heer deegaan ayaa lagu qaadanayaa qaab shaqeedka guddiga iyo habraaca bayaanka xafiisku ku aasaasan yahay waxaana kamid ah casharada ay ku qaadan doonaan tababarkani inta uu socdo qaabka cabashooyinka loo qaabilo ka go'aan qaadashada cabashooyinka iyo sidii faham buuxa looga qaadan lahaa noocyada cabashada la qaabilayo waxaana casharada tababarkani bixinaya agaasinada komishinka
Marwe Ifraax Maxamuud komishineerka komishinka qaabilaadda iyo xalinta cabashooyinka deegaanka ayaa sheegtay in guddigani uu yahay mid loo aasaasay sidii wax looga qaban lahaa cabashada bulshada ee ka jirta xafiisyada deegaanka si adeeg bixinta bulshada la siinayo u noqdo mid ku salaysan cadcadaan iyo isla xisaabtan. xuska maalinta xorriyadda Soomaaliyeed ayaa maanta ay bishu tahay 26 ku beegneyd waxaan inoo eegi doonaa wariye baashe. sanadkii 1962 Juun ayaa laga taagay calankii u horreeyay geyi Soomaaliyeed waxayna ahayd magaalada Hargeysa kadib 4 maalmood kadib oo ku beegan 1 Luulyo 1900 waxaa lagu dhawaaqay midowgii labadii gobol Koonfur iyo Waqooyi halka oo looga dhawaaqay Jamhuuriyaddii Soomaaliya. haddaba tan iyo waqtigaasi oo laga joogo 62 sano ayaa maanta munaasabadda maamuuskaasi waxay ka dhacday xarunta madaxtooyada ee Villa Soomaaliya waxaana daadihinaya kusimaha madaxweynaha jamhuuriyadda ahna gudoomiyaha golaha baarlamaanka Sheekh Aadan Madoobe iyo Ra'iisul Wasaare Xamsi. munaasabadaasi ayaa lagu soo bandhigay taariikh looga waramayay halgamayaashii Israa'iil iyadoo xusuus iyo taalo waxaana la dhigay xarunta Hawadaaka iyo daljidka Dahsoon waxaana lagu soo bandhigay munaasabad oo la tusa ogaada ka ciyaaray soo bandhigeen ciidamada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. munaasabadaasi hadalla ay ka soo jeedeen mas'uuliyiintaasi ayaa ku dheeraaday xaaladda uu dalku haatan marayo. waa tahay waxaad naga daawanaysaan Waasima TV waxaana intaas inoogu dhan warkaan maanta idin haynay warkan war lamid intaan ku kulmi doonana waxaan idinkaga tegaynaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.